السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Sakari Soomaaliya wadanka Australia su'aal aad fara badan baa la soo weydiiyay qaybna commentiga lagu soo qoray fiidiyodan soo dhigay qaybna luqluqa lagu soo diray iyo WhatsApp iyo Facebook xitaa laga soo weydiiyay luqluqa oo dadku aad ay weydiinayaan su'aalihii laymankii waxyaalahaas waxaad moodaan xogaa dadku inuu danaynayo layman qaabkee lagu galaa wali rajadaas ay aad u sareyso halkan ku dul istaagaya laymanka Australia iyadoo degdeg si fiican u dhigeyso wadanka Australia laga soo bilaabo 2025 ilaa iminka 26 waxa qaxootiga arrimuhu qaadanaya iska bedelay horta ma jirto laakiin dood migrationka Australia oo ka socoto hoose way jirtaa magaalada sida arinta soo caan baxday oo ahayd in maarta wadamo muslim baan laga dhigo inkastoo xisbiga uu arintaas siiri oo soo talada hayn si kastoo tahay opinion poll kala sheego oo waxyaalaha maarta fikradda bilaadanka oo lagu aruuriyo wadanka gudihiisa baa 65% baa waxay u galiyeen wadanka qaxootiga in boos lagu qabto lana joojiyo wacdaan ku sida u badaya Australia waa arintaas marka arin xasaasiya waa bolisiga election dambaneed soo gashan waa laga yaabaa Australia ay dadka diido ama arinta adkayso Australia inay dadka wadamada muslimiinta baan saartana waa laga yaabaa dhinaca kale hadaan ku eegno Australia sida caadiga waxay raacdaa oo ay ku dayataa hiyo u ah badan ay America United States America ku dayata America maanteedaan madaxweynaha Mareykanka qodbadii maanta ka jeediyay magaranaysa the State of the Union wuxuu ku sheegay in magaranaysa America ay magaranaysa wali gurayso magaranaysa Minnesota iyo Soomaalidana oo soo hadal qaaday asagoo yiri markaas waxaan u dul magaranaysa loo sameeyay the fraud department vice president madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa horkacay hadda laga bilaabo iyadoo waliba Soomaalida arintaas ay ku socoto Minnesota iyo Minneapolis iyo xitaa Washington oo yiri waa ka kelin gareeyay dadkaas waana la guraya BBC-da waxay sheegtay daraad 2500 oo Soomaaliya wadanka Mareykanka horta inuu ka yaacay oo ka sii daayay 2500 kun iyo 300na in fiise pending application la kansalay 5000 wax ku dhowna oo qaxootiyana statuskooda daaqada laga saaray waa dad aad fara badan waa 2500 baa toos Soomaaliya uga degtay oo Mareykan waxa arintan sheegtay BBC-da take care of yourself, take care of your family, take care of your people, man. Genghis dying what is that, man? Blood, crip, GDs, ya bilab. Ana kama bilabna. Ani Black Hawk down into